waxaanu joognaa guri ay tacsiyi taallo waxaa geeriyootay allah ha u naxariistee walaalkeen xaaskiisa hooyadii carruurtan ayaa geeriyootay iyadoo xaamilaa oo bishii ugu dambaysay ku jirta iyo maalmihii ugu dambaysay ku jirta waxayna ka tagtay 9 carruura oo kale ayay ka tagtay allah ha u naxariistee waxaanu idin leenahay samir iyo iimaan ilaahay khayr ha idinku bedelo weyn inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allah loo wada noqonayaa taa waynu ogaanaa runtii annagu xaafadan waxaan u nimi saaka oo ay taariikhdu tahay 5 shawaal 1442 hijriya kuna beegan 17 bisha shanaad 2021 waxaan u nimi xaafadan hawl shaqo oo kale qoys kale oo dan yara inaanu yani xaalkooda diiwaan gelino duubno ayaanu nimi annagu hawshii ku guda jirna ayaa waxa noo yimi oo naloo sheegay walaalkan in ay geeri ku timi amba baxsado wadinka ku geeylo maahay alxamdulilah geero ilaahay baan lalahay rabbi baan lagu xariir ilaahay baan lagu soo xariir alxamdulilah gabar baa iga dhimatay umal ayaad saakan meydkeedu ay ilaa waxaan islaamka ummadda rasuulka bolkii daraad isoo siinaysa iyo kastii ay reemahaasta ilmaamaas u kala taas ku ambaxsada allahayna saaki ayaan macna waxa ugu soo yidhi haddana carruurtan waxaa soo wada yaacaya laga kala baralay waxaan ku ambaxin maas وامس عروتها carruurta isaga loo saakan gaar ku soo qaaday iyadoo caafimaad oo wafdigileen dhiig bixaysa isbitaalka weyn aan geey isbitaalka weyn ma geeyna tii allah u timid ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilah geeri waa inala xariirtaa islaam baa ii soo qaaday oo meydkeeda gurigeyga keenay anagana aan la jiro alxamdulilah waxaan u baahanahay walaalo islaamka ummadda rasuulka ummadana maxamed ani ii gurmadaan waxa ilmahan inta ugula baxoon wadankii ku geysto ana liisay قلت لي هذه بلوين انتقلنا امس الى كاب هويدا امس بس امس هوي امس سعيد امس ان شاء الله ان شاء الله كان تجينا وصل نقولنا ان شاء الله codsigii uu soo jeediyay ee ahaa in garab lagu siiyo isagoo doonaya in uu carruurta muxuu ahaay uu geeyo yani beled weyn geeyo sida uu noo sheegay noolkii ayuu u baahan yahay arrimaha uu noo sheegay walaal soo sameeyeen sidaas ay ahayd waaye طبعا waxaa marka maanta waxaan guddoonsiinaynaa lacag baan guddoonsiinaynaa lacagtaana aan guddoonsiin doono insha Allah waa sheegi doonaa qadarkeeda iyo cidii ay naga soo gaadhay marka ugu horeysa walaal marka hore waxaan ku guddoonsiinaynaa طبعا lacagta aad sheegtay aynu xisaabinay lacag waxay $500 marka $500 waa tawlan halka $500 keeg ilaahay jisaa ku sii waxa weeye waa lacag $500 waxa weeye waa kugu samirsiinayna inta waxa weeye garban muxuu ahay kugu siinayna samir iyo iimaan waan leenahay mar labaad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa muxuu ahay ina siyaar waxa ilaahay baana qaada طبعا lacagtan waxay ahayd waa lacag noo diyaar bay ahayd waa runtii waxa weeye waa arrimaha runtii aadka u muhiimka ah haddii aanu nahay kaalme kuwan inaanu baahiyaha maalin kasta noo hor imanaya aanu awood u yeelano inaan ka jawaabno dhibaatada noocan oo kale baa noo hor imanaysa dhibana noo hor imanaya marka halkii aanu ka odhan lahayn intaan muuqaal ka soo duubno lacag soo dira ay waqti qaadanayso runtii sidana habboon waxa aanu haynay lacag aanu haynay baanu guddoonsiinay lacagta waxa soo diray walaal yani ilaahay dartii ula baxay oo noo sheegay 500 waxa aad siisaan idinka nooga wakiila buu yiri idinka iga wakiila waxa siisaan cid kurbadi hayso dhib haysato yani siiya annaguna waan la sugaynay maanta kale aan la sugayn yani arrinkan oo kale aan la sugaynay walaalkaasi waxa uu sadaqada ula baxay dhib isaga haysatay
inuu ilaahay ka faydo sadaqaystaha laftiisu arrin baa haystay dhib baa haysatay ka haysatay xagga qoyska waxa weeye waxa uu ama muxuu ahaay ku dhawaa qoyskiisu siduu noo sheegay inuu burburo qoyskiisa ayuu uga cabsi qabaa inuu burburo oo ay kala tagaan xaaskiisa sidaa darteed xaaskiisa oo ubad u leh ayaa waxa uu doonayaa inay sii wada joogaan oo ilaahay dhexdooda hagaajiyo sadaqadana saas ula baxa ilaahay waxaan ka baryaynaa qoyskaana inuu qaboojiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa qoyskaana inuu muxuu ahaayay quluubtooda isu keeno ayaan uga baryaynaa walaalkaasna allah baa sadaqada ka aqbalaya insha Allah biidnillahi alkarim Allah waxaan ka baryaynaa inuu ka aqbalo oo waxa weeye muraadka uu la baxay san inuu ilaahay u aqbalo insha Allah biidnillahi alkarim walaal arrinku saas ku yimi idinkuna waxa weeye haddii lacala xitaa kuu muuqato inaad joogtid khasab kuma khasbanid inaad tagtid inaad balad weyn tagtid kuma khasbanid lacagtaasi waxa weeye sida aad doontad ka yeelaysa anagu dhibti baa liigu sheegtay oo gabadha lagu lahaa lacag oo $180 ah lagu leeyahay oo hafta oo seylida erig meeshaas oo kawaanka iyo waxaas looga lahaa in jaaburiga hadayd halkaan nagu salaamayeen makiintiisa nafteeda alraashin ay kasoo looga soo qaaday ugu deystay baa macnaha lagu lahaa marka alxasan wixii iid lagu lahaa ilaahay baa keenay kulli gar iyo gardar ilaahay naxariistiisa lagama quusto in deentaas ka bixiyo ayaa macnaha idqaadsana ehelkii dadkii kale iga dambeeyay ehelkayga talka inta waxay iiga soo hero iyo hadii ehelkii wax ii soo dhiibaan sidaas ilmaha markii deentii iid lagu lahaa aan ka bixiyo in sidaas ku ambaxo hadii deentii ay iga baxay waysana macnaha iyadoo deen lagu leeyahay gabadhii deen loo haastana dush ma jeedan kari marka ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah rabbil caalamiin al-shukri intaan ba ilaahay boqorka keenay intii soo bixisana ajri iyo xasanaad Allah ka siiyo amiin annagana sabr iyo iimaan Allah naga siiyo amiin amiin iimaanka islaamta Allah nagu sugo alxamdulillah waxa ku qorshaysan waxa hadda waxa kaaga qorshaysan caruurta hadda waxaan doonayaa hadii ay macnaha ay ka yar hadaan saddex aan u dhiibo ata aan macnaha hadii lacagtaan deentii iyo waxaas aan qaar kaga bixiyo wixii markaa ilmaha balad weyn ii geen karo caruurtayda kana ugu weyn kuwa kale waa yaro soo furi soo galooreeya marka ilaahay subxaana qaadirka rabbiga asal wajalaha kulli maalintii saamta la qaadmaysa ilaahay baa irid gaaw meel kale wax kale iga siin karo laakiin waxaan ku talo jiray ani deenta hadda oo maanta liigu sheegtay gabadhii nin kastaba deen baan ku leeyahay isiri aniga ma ogeen balse in deentaas ka bixiyo iyadoo deen lagu leeyahay aan gaar raaco waa igula ma haboona marka si alla sidii kula noqota adduun loo dhigta balad weyn iyadoo hooyadeeda joogto caruurta ayadeedu hooyo ayaa joogta waan gartay aad u geynaysaa ayaan u geynaa aniga kullee hooyaday aabahay waa dhinteen ehel iyo asuul kale marka macnaha aan u geynaa ma jiraa sabo samiriya ma walaal kulaan Allah ba kula jirta sabah samiriya waa yahay mar labaad aynu khayr weyn ugu ducayno reerkan inuu ilaahay khayr weyn u furo oo badal khayr qaba ilaahay siiyo walaalkan magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdi Cabdullaahi Jimcaale ayaa la yiraahdaa xaaskiisana waxa loo jiray Saafi Cabane ayaa loo jiray ilaahay ha u naxariisto xaaskiisa oo yaani maanta geeriyootay saaka geeriyootayba wax weeye waxaanu kala qayb galay sidoo kale qoyskan waxaan kala qayb galay aaskii baan kala qayb galay maanta السلام عليكم دار قوم المؤمنين waanu la joognay ilaa halkan maanta waa wada joognay waxa weeye halkan kamarada waxa ka dambeeya dadyo badan oo waxa weeye jiiraanka iyo ehelkaba ah oo halkan wada degan yihiin intaasaanu ku gabagabeynaa inankaas lacagta soo dirayna
إلهي خير وين هكوا بالمريو آمين يا رب آمين ولا الخير بنسكوجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ولا لا إن شاء الله خير بنكون رجينا السلام عليكم. خير بنكون رجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.